dadka Soomaaliyeed waxay degan in dalku waxa uu dhibaato qaba waxa weeye nabadgelyo marka ugu horeysa in nabadgelyada dalka la xoojiyo oo la sugo ummadana hubka laga dhigo sidii caadada u ahaan jirtay ciidamada Soomaaliyeedna loo tababaro oo la gaarsiiyo aqoontii ay lahaan jireen intaas ayaan kula talinayaa adeegga bulshada waxa ka mid ah waxa laga qabanayo caafimaadka waxbarashada iyo waxa kale oo ah in jidadka la dhiso magaalada jidadkeeda waa in haweenka xaqooda la siiyaa laguna daraa meel walba qaybaha dawladda meesha ugu sareyso ilaa iyo meelaha dhexooda waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa inuu soo dhiso dawlad tayo leh iyo dad aqoon leh waxaan madaxweynaha ka codsanaynaa inuu sameeyo hay'adaha dawliga institution building madaxweynaha waxaan kula talinaynaa ama ka codsanaynaa inuu la dagaalamo musuqmaasuqa iyo nin jeclaysi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in uu ku dadaalo 4 sano soo socda dib u heshiisiin iyo in uu dadka masaakiinta shacabka waxay jecel yihiin uu priority saaro ama uu mid koowaad ka dhigto dawladda Soomaaliya waxaan uga baahanahay inay dib u dejiso qaxootiga ka baxsan wadanka Soomaaliya iyo barakacayaasha wadanka gudihiisa inay dib u dejiso waxaan rabaa dawladda Soomaaliyeed in ay u samayso waxbarasho dhallaanka Soomaaliyeed ee soo koraya ilaa heer jaamacadeed waxaan u baahanahay dawladda cusub in ay caafimaadka kuwa kale ummadda Soomaaliyeed ay ku caawiso meel walba joogto dawladda Soomaaliyeed waa taageersanahay waxaan rabaa dawladda inay qabato hubka dhigis iyo in ciidamada nabad sugidda ay kor u qaado in nabadgelyada hubka shacbigana laga dhigo the only way dawladda ku horumaraan taariikhdu dursan bay jireen